بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxaan maanta halkan ku soo gabagabeynay shirkii looga hadlayay arrimaha isku xirka nidaamka caafimaadka ee dalka Soomaaliya looguna dabaaldegayay maalinkiisii koowaad maalinta nidaamka caafimaadka ee loo dhan yahay ama Universal Health Coverage Day waxa lagu yiraahdo afka Ingiriiska kulankaas oo uu furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo ay ka soo qayb galeen wasiirro ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Ali Xaaji Aadam iyo wasiirro kale oo ka socda xukuumadda Soomaaliya agaasimayaal guud xubno ka socda labada gole ee baarlamaanka iyo dhammaan hay'adaha iyo bahda taageera nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya shirkan oo ahaa shir laba maalin ah ayaa wuxuu ka qabsoomay teendada Afisyooni ee magaalada Muqdisho shirkan oo muhiimad gaar ah u leh nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aaday sanadkan iyada oo loo dabaaldegayo xuska maalinta caalamiga ee nidaamka caafimaadka ee loo dhan yahay sidii ka muuqatay khudbadihii kala duwanaa ay jeediyeen madaxdii ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay xoog saaraysaa mudnaan gaarana siinaysaa dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam caafimaad oo tayo leh u adeega dhammaan bulshadeynta Soomaaliyeed ka jooga tuulo iyo ka jooga magaalo haddaba shirkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa maanta wuxuu halkan ku soo gabagaboomay iyada oo laga gaaray guulo waaweyn oo la taaban karo guulaha waxaa ka mid ah in la sii xoojiyay isku xidhka nidaamka caafimaadka iyo wada shaqaynta dawladda Soomaaliya oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka iyo waxa la yiraahdo bahweynta hay'adaha iyo donorska taageera nidaamkeena caafimaadka ee Soomaaliya waxaa kaloo la sii xoojiyay isku xidhka dawladda heerarkeeda kala duwan heer federaal iyo heer dawlad goboleed taasi waxay keeni doontaa haddii ilaa yiraahdo sanadka soo socda inaynu gaadhno guulo la taaban karo oo laga sameeyay xagga nidaamka caafimaadka haddii ay noqoto in la sii hormariyo mashaariicdii socday haddii ay noqoto in la hagaajiyo waxa la yiraahdo tayada nidaamka caafimaadka iyo adeega uu baxsho heerarka kala duwan sida private-ka iyo waxa la yiraahdo public ama waxa loo yaqaan adeega caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo ka dawliga labaduba inay wada shaqeeyaan tayadana kor loo qaado guulaha ka soo baxay shirkan waxay suurtagelin kalaan oo kale in dawladda Soomaaliya ay hubiso in dhaqaalaha loogu deeqo nidaamkeena caafimaadka Soomaaliya loo isticmaalo baahiyaha gaarka ah ee dalkani uu qabo marka waxaan dhihi karaa shirkan oo shir aad u muhiim ah ayaa wuxuu sanadkan ku soo aaday xilli abaaro waaweyn ay dalkeena ka dhaceen xilli colaado ay dalka ka socdaan oo ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyo helidda adeega caafimaadka ee dhammaan bulshadana Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in kulamada soo socda ay daba galaan ballanqaadyadii laga sameeyay kulankan oo aan rajaynayno hadday hirgalaan inay u noqon doonaan miro dhal guulo waaweyn oo u gaaro nidaamkeena caafimaadka Soomaaliya aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa